بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal waa shanta bisha juun sanadka 2026 maalin jimco ah falan ha ilmaamin maanta oo kale inaad akhriso suuratul kaafi iyo guud ahaan qur-aanka kariimka intaad awoodo inaad xiriiriso qaraabada sidoo kalena aad wadooyinka ka qaado dadka waxa dhibaya mar kale jimco wanaagsan qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa Zelensky wuxuu taagan yahay madaxweyne Putin oo aniga iyo adiga ma isfahmi karaynaa arrinta masaajid al-aqsa iyo Israel qorshe ay ka damacsan tahay macluumaadka ka soo kordhay muuqaalka cusub waxyeelada gaartay markabkii dagaal ee Mareykanka US Gerald Ford iyo baaritaanka telefishinka CNN Iran oo cadeymo iyo dokumentiyo sheegtay inay gacanta ay ku dhigtay doorka dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ee dagaalkii ugu dambeeyay maraakiibta shidaalka sida ee dowladda Iran oo dhaqdhaqaaq sameeyay xilli Mareykanka uu go'doomiyay marinka Babul Mandab iyo macluumaadyo kale ayaan qaybtan kugula wadaagaya insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale mar cadasho barnaamijka falanqaynta caalamka waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan muuqaalkan aad arkaysaan waa telefishinka CNN ee dalka Mareykanka baaritaan uu sheegay inay sameeyeen oo ku saabsan waxyeeladii gaartay markabka dagaal ee Mareykanka ee US Gerald Ford kaas oo la sheegay inuu dab uu ka kacay laakiin telefishinka CNN waxa uu leeyahay waxa la qariyay macluumaad rasmi ah oo ku saabsan waxyeelada gaartay markabkani dagaal ee Mareykanka uu leeyahay taasoo ka dhigan waxyeelo ka badan inta la soo bandhigay in markabka ay gaartay CNN si weyn ayuu Mareykanka ugu kacsan yahay madaxweyne Trump iyo CNN la isma tusiyo marka baaritaano iyo cadeymahan ayay soo bandhigeen oo muujinaya waxyeelada markabkan gaartay markabkan wuxuu ka mid ahaa maraakiibtii dagaal ee Mareykanka uu soo diray agagarka xeebaha dalka Iran markii dambe waxaa la sheegay in qaybihii ciidamada ay jiifanayeen ilaa 600 oo sariirood inay gubteen iyo qaybo kale waa laga saaray shaqadii iyo ciidanka howlgalkii ay markabkan u isticmaalayeen markii dambe jasiirad Greek ku taala ayaa la geeyay halkaas oo la sheegay in ugu yaraan dib u dayactir loogu sameynayo marka CNN waxay taagan tahay inta loo sheegay inta la qariyo ayaa ka badan oo ku saabsan markabkani dagaal oo Mareykanka uu lahaa US Gerald Ford muuqaalada uu soo bandhigayna waaba dareemi karaysaa oo xaslada halkan ma godadkii dhulka hoostiisaba sidee wax u jiraan ma gubashada intaan la eg ayaa markabkii gaartay waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelensky warqad furan ayuu u diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu yiri warmaan si toos ah u wada hadalno oo wada hadalla aan bilowno si dagaalka loo soo afjaro maadaama muddo dheer dagaalkan uu socdo Zelensky wuxuu sheegay Ukraine inay diyaar u tahay in si foolka kulan ay ula yeelato madaxweyne Vladimir Putin horey ayuu sidaan u lahaa Zelensky ani adiga aan isfahano ani adiga aan kulanno dhexdeena waa lagu jiraa waa laga shaqeynayaa dad isfahmaya ayaan nahay qaraabo ayaan nahay yani isku deegaan way yihiin oo Ukraine iyo Russiaanka iyo waa dad yani hadii aad si fiican aad u eegto qaybo badan oo Ukraine ka mid ah dadka deganba iyo guud ahaan dalkaasi Ukraine ba inay isu dhow yihiin dad ahaan iyo markaad eegto Zelensky marka wuxuu taagan yahay foolkafol inaan u kulana diyaar baan u nahay xabadana in la joojiyo oo aan labadayada wada hadalno maxaa ku qasba marka Zelensky sidaas inuu yiraahdo sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyay maanta fariintiisa marka wuxuu diiradda ku saaray hadal uu madaxweyne Putin uu xasuusinayo oo wuxuu yiri war Mareykanka iyo reer galbeedka Iran ayay nooga mashquuleen sidaa daraadeed yaani qalad noqonin inaan sugno inta reer Yurub ama Mareykan ay ka soo jeesanayaan garab istaaga ay Israel u garab taagan yihiin dagaalka ka dhanka ah dowladda Iran iyo ahmiyadda Mareykanka halkaas uu siiyay sidaa daraadeed war anaga aan isfahano aan heshiino dagaalkan iska soo gabagabayno Mareykanka ma lahan buu yiri awood oo labada dhinac yani ku hergeliyo xabajoojin ilaa qadadka dagaalka in Israel la garab istaago waan ognahay buu yiri inaan caawimaad helayno laakiin halkaas ayaa lagu mashquulay bar anaga ma isfahmi karaynaa madaxweynaha Ukraine sidoo kale wuxuu soo jeediyay labada dhinac inay sameeyaan isweydaarsi maxaabiis oo dhameystiran isagoo sheegay tallaabadaas inay noqon karto bilow wanaagsan oo lagu gaari karayo heshiis nabadeed wuxuu sidoo kale ugu baaqay madaxweyne Vladimir Putin inuu dib u soo celiyo shacabka rayidka iyo carruurta la sheegay in laga qaaday dhulka Ukraine intii uu socday dagaalka lana geeyo meelo kale Zelensky waxa sidoo kale uu helay warbixin muujinaysa in Ruushka waxyeelo ay gaarsiiyeen xarumo muhiim ah iyadoo Ruushka la diiwaan geliyay markii ugu horeysay in ka badan 30 gantaal oo nooca Iskandarka ah inuu ku weeraray gudaha dalka Ukraine
afhayeenka madaxtooyada dowladda ruushka Dmitry Peskov ayaa dhankiisa ka jawaabay hadalkii madaxweyne Zelensky, waxaana uu sheegay Zelensky in lagu soo dhaweynayo magaalada Moscow waqti kasta haddii uu doonayo inuu la kulmo madaxweyne Vladimir Putin. Peskov waxaa intaasuu ku daray in Putin inuusan weli akhrin fariinta kaga timid madaxweyne Zelensky. ruushka iyo Ukraine sanadkii shanaad ayuu dagaalkooda ku sii socdaa, iyadoo labada dhinac isweydaarsanayaan weeraro iyagoo adeegsanaya diyaarado drones, gantaalo iyo madaafiic. inkastoo ay jiraan dadaalo diblomaasiyadeed oo badan, haddana wadahadaladii la doonayay in dagaalka lagu soo afjaro marar badan hakad ayay galeen, iyadoo madaxweyne Putin uu taagan yahay war aniga adiga intaan isfahno baan waxaan iska soo gabagabayno, haddii aan isfahmaynana waa inaad magaalada Moscow igu imaataa. Zelensky wuxuu diidan yahay Moscow inuu tago, sababtoo ah Moscow haddii uu tago wax badan ayuu luminayaa, wuxuu lumin doonaa dhammaan taageeradii reer galbeedka, isagana wuxuu doonayaa meel dhexe in la isugu yimaado oo lagu kulmo, oo xitaa mar wuxuu yidhi Kiev aan kugu soo dhaweynayaa. Bukula tahay heshiiskaasi inuu dhici karayo, aragtidaada nala wadaag, like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. dhinaca kale aan kuu raaciye arrinta ku saabsan masaajid Al-Aqsa iyo qorshaha Israa'iil ee ka damacsan tahay iyo weliba Maraykanka ayaa aad u sii xoogaysanaya. Ingiriiska ayaa si weyn kaga hor yimid in dowladda Jordan ama Urdun gabi ahaanba laga saaro ilaalinta iyo amniga guud ahaan ee masaajidka Al-Aqsa iyo doorka ay ku leedahay. qoraal ka soo baxay dowladda Ingiriiska ayaa sidaas lagu sheegay sida wargeyska Middle East Eye uu daabacay. dowladda Britain waxay taagan tahay masaajidkaasi iyo ilaalintiisa iyo doorka dowladda Jordan waa inaan gabi ahaanba meesha laga saarin. Israa'iil oo taageero ka helaysa wiilka sodoga u yahay madaxweynaha Maraykanka Jared Kushner ayaa qorsheynaysa inay la wareegto amniga guud ahaan ee maamulka masaajidka Al-Aqsa. Jared Kushner oo nin Yahuudi ah sodogna u yahay madaxweyne Trump waxa uu doonayaa in masaajidkaasi lagu soo daro qayb ay Yahuudda ay ku cibaadaystaan ama ay wax un ku sameeyaan, sidoo kalena si isku mid ah sida muslimiinta ay u galaan Yahuudda loo ogolaado in masaajidkaasi ay geli karayaan. sidoo kalena waxaa la doonayaa in maamulka Israa'iil marka gacanta ay ku dhigto la tafatiro khudbadda sidaan hore idinkula wadaagay. imaamiyada Israa'iil ay soo magacaawdo, amniga guud ahaan iyaga gacanta ay ku hayaan. waana qorshe qayb ka ahaa heshiiskii Abraham Accord loogu magacdaray oo Jared Kushner dadkii soo diyaariyay qayb uu ka ahaa. dowladaha islaamka ilaa iminka arrintan jawaab rasmi ah kama aanay bixin, waxaana moodaa tani inay noqon karto xasarad kale oo aad u weyn. si gaar ahaaneed dowladda Ingiriiska waxay sheegtay haddii arrintan la sii wado, yacni in dhibaatooyin waaweyn kana weyn waxaa hadda la malaysanaya inay bannaanka imaan karayaan, sida wargeyska Middle East Eye uu ka soo xiganayo mas-uuliyiinta dowladda Ingiriiska. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha qodobadan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. dowladda Iiraan ayaa waxay shaaci ka qaaday inay hayso cadeymo muujinaya dowladda isutaga Imaaraadka Carabta inay si toos ah kaga qayb gashay duqeymihii iyo weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhanka ahaa dowladda Iiraan, lagana soo qaaday dhulkooda duqeymo culus oo laga fuliyo gudaha dalka Iiraan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay dukumeentiyada iyo cadeymahaasi inay gacanta ku dhigeen, taas oo cadaynaysa in Imaaraadka Carabta si toos ah kaga qayb galay howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa dowladda Iiraan. marar badan ayaa Imaaraadka arrintan lagu eedeeyay, iyagana waa ay beeniyeen. sidoo kalena waxaa la sheegay in ay beegsadeen jasiirado ku yaala gudaha dalka Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda marka ee dowladda Iiraan inuu macluumaadkan soo saaro waxay ku soo beegmaysaa iyada oo dhowr jeerna Imaaraadka uu Iiraan ku eedeeyay in diyaarado drones iyo gantaale ay ku weerareen gudaha dalkaasi inta wada hadallada lagu guda jiray, sidoo kalena heshiiska xabajoojinta dhaqangal u ahaa. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda waxay taagan tahay annaga waxaan bartilmaamaysanay xarumo kala duwan iyo saldhigyo militari oo Maraykanka uu ku leeyahay gobolka. sidoo kalena hore ayaan dowladaha gobolka digniin ugu dirnay, digniintaasoo ahayd in haddii ay u ogolaadaan saldhigyadooda Maraykanka inuu isticmaalo inay la kulmi doonaan jawaabta ka imaanaysa dowladda Iiraan. sidaasi ayaa lagu yiri qoraalkan oo wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency ay baahisay. Imaaraadka Carabta eedaynta cusub ee loo jeediyay cadeymaha Iiraan ay sheegtay inay gacanta ay ku hayaan wax wara kama aanay soo saarin. dhinaca kalena iyada oo Iiraan wili cunaqabatayntii dhanka badda ay saaran tahay ayaa 4 markab oo calanka Iiraan uu ka dulbabanayo sida la sheegay waxa ay saliid ceyrin ay ka qaadeen gudaha dalkaasi toddobaadkan, waxaana tan Isniintii marin biyoodka Hormuz sida la sheegay ka gudbay 4taasi markab markii ugu horeysay tan 15 Abriil markii Maraykanka uu bilaabay go'doominta dekedaha dalkaasi Iiraan. xogta lagu daabacay shirkadda la socota dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee Kepler la yiraahdo waxaa lagu sheegay in maalintii shalay oo kaliya
in la arkay dhaqdhaqaaqa maraakiibta Hilda 1, Amber, Zalvia iyo sidoo kale Happiness 1 kuwaas oo sida la sheegay ka gudbay marinka Hormuz waxaana ay wadeen qiyaastii 7 milyan oo fuusto oo saliid ceyriin ah sida lagu sheegay qoraalka. saliidan ayaa waxaa la sheegay in halkaasi lagu hayay tan iyo bartamihii Abriil jasiiradda Qaraj lagu magacaabo waana xarunta ugu weyn ee saliidda Iiraan ay ka dhoofiso in ka badan 90% saliidda ceyriin ee dowladda Iiraan sida caadiga ah dekedan ayay ka baxdaa. maraakiibta ayaa marinka Hormuz waxay ka gudbeen iyagoo sida la sheegay damiyey qalabkii laga aqoonsan lahaa sidoo kalena lagula socon lahaa dhaqdhaqaaqa maraakiibta iyo raadiyaha maraakiibta si loo adkeeyo la socodkooda. shirkadda Kepler lagu magacaabo waxay sheegtay inay si weyn ugu tiirsan tahay sawirada dayax-gacmeedyada si ay ula socoto maraakiibta qaada shidaalka iyo badeecadaha kale ee ceyriin. sida wargeyska The New Arab uu baahinayo maraakiibtan ayaa saliidda Iiraan u qaada waxaana ay geeyaan meelo u dhow Malaysia iyo Singapore halkaas oo maraakiib kale lagu gudbiyo si caalamka loogu iibgeeyo. maraakiibtaasina waxaa la sheegay inay macaamiisha ay ku wareejinayaan shidaalka dowladda Iiraan kuwaasoo inta badan ku sugan gudaha dalka Shiinaha. habkan ayaa Iiraan waxay u adeegsanaysay muddo dheer si ay kaga gudubto cunaqabataynta caalamiga ah. inkastoo maraakiibtan ay sii wadeen shaqadooda inta uu socday dagaalka Israel iyo Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeyay haddana waxa ay hakad ay geliyeen dhaqdhaqaaqooda tan iyo 13 Abriil markaasoo Washington ay ku dhawaaqday godoominta la saaray dekedaha dalkaasi Iiraan. tallaabadanna waxay timid kadib markii Tehran iyadana ay xadiday dhaqdhaqaaqii marinka Hormuz. shirkadaha kale waxay sheegeen in 3 markab oo kaliya oo xiriir la leh dowladda Iiraan ay hore kaga gudbeen marinka Hormuz tan iyo godoominta laakiin ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay weli ay la socdaan tallaabooyinka ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta dowladda Iiraan. laakiin dhankoodana Iiraaniyiintu waxay yiraahdeen annaga ayaa marinka Hormuz gacanta ku hayna maraakiibteena dhaqdhaqaaq way sameynayaan laakiin kuwa kale uma ogolaanayno. marinka Baabul Mandab ayaa dhinaca kale indhaha lala raacaya waxaana la isweydiinayaa suuragalnimada dowladda Iiraan marinkaasi in ay xiri karayso. Baabul Mandab waa mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee ganacsiga iyo tamarta caalamiga. waxa uu isku xiraa badda cas iyo sidoo kale gacanka cadmeed qiyaastii 15% ganacsiga dunida iyo 12% maraakiibta shidaalka lagu qaado iyo 8% gaaska LNG-ga ee dabiiciga ah ayaa lagu waramaya halkaasi inuu maro. inkastoo dowladda Iiraan si toos aysan u xukumin Baabul Mandab sida marinka Hormuz oo kale haddana waxay awood u leedahay saameyn inay ku yeelato marinkan iyada oo adeegsanaysa xulafadeeda dalka Yemen ee Xuutiyiinta. haddii Xuutiyiinta ay kordhiyaan weerarada maraakiibta qatarta gaadiidka dhanka badda ayaa sare u kacaysa taas oo shirkadaha maraakiibta ku qasbi doonta inay ka fogaadaan marinka Baabul Mandab. haddii Baabul Mandab mar kale la carqaladeeyo maraakiibta u kala goosha Aasiya iyo Yurub waxay ku qasbanaan doonaan dhanka iyo Koonfur Afrika inay aadaan taasoo kordhinaysa waqtiga iyo qarashka safarka. taas waxaa kaloo ay keeni kartaa korar ku yimaada qiimaha shidaalka gaaska badeecadaha iyo caymiska maraakiibta. khubaradu waxay ka digayaan marka haddii marinka Hormuz iyo Baabul Mandab labaduba si isku mar ah ay dhibaatay u galaan dunida inay wajihi doonto qalalaasa dhaqaale oo aad u weyn iyadoo qiimaha tamarta si xoogan ay sare ugu kacayso. silsiladaha sahayda ah ayaa gabi ahaanba carqalad ay ku imaan karaysa isla markaana sicir barar iyo hoos u dhac dhaqaale ayaa ku dhici karaya guud ahaan dunida. marka la soo koobo Baabul Mandab wuxuu noqon karayaa kaar istiraatiiji oo muhiim ah oo Iiraan xulafadeeda ay gacanta ay ku hayaan. aragtidaada nala wadaag like-sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. wargeyska Tactical Report lagu magacaabo waxa uu daabacayaa macluumaad ku saabsan suuragalnimada Mareykanka inuu doonayo in cunaqabatayn uu ku soo rogo Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dowladda Qatar sabab la xiriirta xiriirka wanaagsan ee ay la leeyihiin dowladda Shiinaha. Ustaad Khalid Macalin Maxamuud oo barnaamijkan ama warbixintan aqriyay sidoo kalena ku daabacay bartiisa YouTube-ka ayaan ka soo xiganaynaa oo soo koobay macluumaadkan. waxyaabaha dhacay waxaa weeyaan sidaa ka warqabtaan booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Trump uu ku tagay dhinacaas waddankaasi Chinaha waxyaabo badan oo u kala cadaaday ayaa jira ayaa la leeyahay waliba waxa uu ogaaday heerka ay gaarsiisan tahay xiriirka ka dhexeeya Chinaha iyo gobolka Khaliijka gaar ahaan Sacuudi Carabiya, Imaaraatiyiinta iyo Qadariyiinta. sidaa daraaddeed qaar ka mid ah la taliyaashiisa markii uu ku soo laabtay dhinacaas waddankaasi Mareykanka waxay u sheegeen in nimankii reer Khaliij ay kibreen isla markaana ay bilaabeen inay ka goostaan dhinacaasi waddankaasi Mareykanka ayna bilaabeen heshiis oo parallel ah oo la isgarab soconayo oo Mareykanka iyo Chinaha ay isgarab soconayaan inay ku sameeyaan waddankaasi Chinaha iyadoo sida laga warqabo Chinaha uu yahay dhaqaalaha mustaqbalka ee adduunyada meesha in loo guuro la rabana ay tahay laakiin Mareykanka uu walaac badan ka muujinayo ama walaac badan uu ka qabo. sidaa daraaddeed
la taliyaasha waxyaabaha ay kula taliyaan waxaa ka mid ah wadamada khaliijka inta aysan farada bixin islamarkaana ay xargagoys noqonin in hadda jilbaha dhulka loogu dhuftay indhahana loo guduudiyo loona sheego in maxaa la yidhahdaa xiraaqaadka ay la leeyihiin Chinaha ugu yaraan ay hoos u dhigaan heerka hadda uu gaarsiisan yahayna ay hoos uga dhigaan. Laba arrimood oo waaweyn ayaa jira ayaa la leeyahay oo uu ogaaday Maraykanka. Sida ay tabinayso telefishinka afka dheer ee Maraykanka ka soo baxa ee CNN la yiraahdo waxa uu leeyahay maamulayaasha waddankaasi Maraykanka gaar ahaan madaxweyne Trump iyo la taliyaashiisa waxay ogaadeen heerka qotada dheer ee xiriirka ka dhaxeeya Sacuudi Carabiya iyo waddankaasi Chinaha uu gaarsiisan yahay. Heer waxay ogaadeen inay jiraan saldhigyo Chinese ay ku dhex leeyihiin gudaha waddankaasi Sacuudi Carabiya kuwaasoo gantaalada ridada dhaadheer laguna sameeyo laguna farsameeyo Sacuudiyaankana lagu tababaro. Arrintaasi CNN ayaa soo bandhigtay waana arrin ay aad uga naxeen Maraykanka mukhaabaraad ahaan hadda ay u ogaadeen isla markaana ay ogaadeen in Sacuudiga meel fog uu gaaray oo waddanka China xiriirka uu la leeyahay oo aad u qoto dheer yahay. Waxaa intaasi dheer in Chinesku ay gorgortan la galeen dhinacaas waddankaasi Chinaha gaar ahaan arrimaha ku saabsan in loo dhiso warshad bacrimisa nuclearka oo si silmi ah ay kaga faa'iideysanayaan waddankaasi Sacuudi Carabiya. Sidaan horey warbixinada qaar idinkugu sheegay Sacuudi Carabiya waxay ka dalbatay warshad nuclear oo tamarta energy-ga ku shaqeynaysa waxay ka dalbadeen waddankaasi Maraykanka inuu u dhiso laakiin shuruudo ayaa lagu xiray oo ay kamid tahay heshiiska Ibraahimiyada inay ku soo biiraan macdanta la bacriminaya inay ka imaato Maraykanka khubarada ka shaqeynayso maxaa la yiraahdaa warshadaas inay noqdaan Maraykan ee Sacuudiyaanka awoodda energy-ga kaliya ay isticmaalaan. Laakiin dhanka kale inta marka ay la xiriireen dhinacaas waddankaasi China waxa uu sheegay inuusan ku xiraynin inay Israa'iil la heshiiyaan inuusan ku xiraynin in macdanta uraniumka banaanka laga keeno oo waddankooda ugu bacrimin doono. Sidoo kale intana marka laga reebo ragga khubarada ee Chinese ee meesha ka shaqeynaya khubarada kale inay noqdaan inay Sacuudiyaan ay noqdaan inaysan waxba ka qabin. Arrintaasi waxaa la leeyahay Sacuudiga aad ay ugu guuxeen waxaana suuragal ah inuu heshiiska uu dhamaystirmo inkastoo Maraykanka arrintaasi uu indhaguduudis badan ka sameynaa uu leeyahay no heshiiskaasi ma dhici karo aniga ogaansho la'aanteyda. Dhanka iyo Imaaraadka waxaa la leeyahay Imaaraadku cilaaqaad fiican ayuu la leeyahay dhinacaasi Chinaha xataa waxaa ka warqabtaan intii dagaalka Iiraan lagu hayo uu socday oo bilihii maxaa la yiraahdaa Mars iyo Abriil in maamulaha waddankaasi Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed uu booqasho ku tegay waddankaasi Chinaha arrintaasoo Maraykanka aysan jeclaysanin. Xilligii Biden 2021 waxaa jirtay doon lagu arkay gudaha waddankaasi Imaaraadka Carabta gaar ahaan Imaaradda Dubai iyadoo halkaasi joogta. Doontaasi Maraykanka mar dambe waxay ogaadeen inay ahayd doon basaas ah satellite uu ku rakiban yahay isla markaana macluumaad ka aruurinaysay joogitaanka ciidamada Maraykanka ay ku leeyihiin waddankaasi Imaaraadka Carabta taasoo marka dambe inta ay ka dacwoodeen Maraykanka ee keentay in doontaasi meesha ay ka baxdo. Marka waxay leeyihiin nimanka la yiraahdo Chinesku waxay ka dhex adeeganayaan gudaha Imaaraadka Carabta heer ay gaareen in doon wax basaasaysa gudaha Imaaraadka ay keeneen oo macluumaadkeena oo dhan halkaasi ee satellite-dadooda ay warbixin ay ka qaateen. Arrintaasoo keentay in Imaaraadka iyo Maraykanka ay aad isugu dhacaan. Haddaba waxaa la leeyahay madaxweyne Trump tallaabooyinka cunaqabateynta ay u qaadi kara maxaa ka mid ah. Dabcan waddanka Maraykanka iyo wadamada khaliijka saaxiibo waaye cunaqabateyntoasi inuusan saarin ayaana suuragala laakiin waxaa suuragala in wax badan uu ka xanibo. Tusaale ahaan haddii ay soo iibsadaan hub Chinese oo tusaale ahaan ciidamada cirka oo kale inta hubkooda waxaa suuragala in la joojiyo hubka Maraykanka uu ka iibinayo waddankaasi Imaaraadka maadaama hub kale inta ay China kala imaadeen. Sidoo kale inta gantaalada ridada dhaadheer hadday China kala imaadaan ee diyaaradaha droneska ama diyaaradaha dagaalka sida J-17 oo kale haddii ay China kala imaadaan waddankaasi Sacuudi Carabiya waxaa suuragal in laga joojiyo ama loo diido diyaaradii F-35 la dhihi jiray ee loo ogolaaday dhaxal sugaha waddankaasi Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan markii uu tegay dhinacaasi waddankaasi Maraykanka kabacdina loo saxiixay in loo ogolaan doono in la siiyo diyaaraddaasi F-35 oo noqon doono waddanka labaad ee bariga dhexe ku yaala markii laga reebay Israa'iil ee asagoo hubkaasi yeelan karo. Arrimahaas oo dhan waxaa suuragal ayaa la leeyahay marka in la xanibo xanibaadaasna ay nooc ma u muuqan karto inay tahay sidii cunaqabateyn oo kaleento.